haweenka jannada nabigeena ka sheekeeyay calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd ooy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligayga ka soo baxa ayaa cadceedda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuuralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nooloo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaya buu rasuulku marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuuralcaynta dhuunteeduu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annagu waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annagu waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annagu waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annaguna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fudhisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gaddoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay albaabka jannaday joogaan ay ku sugayaan albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyo dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga ayaa jannada u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas inaan dembi lahayn muu inagu jiraa macsuumiin ma nihin dembi wuu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sanno arooska habeenka ugu horraysay xaaskaaga lagu soo hooyo
labaatan daqiiqa saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa geli maxaad nahay yaa yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda labaatan daqiiqa qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeega ibn Cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasa xuur lacaynta daawashadeeda ku raaxaysan waqul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim ودايمون ساسو ودايمون مؤمن 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع يدنا ويكسو بودي معانقته قرقوريت معانقته كليه ابن عباس هدنا 7 سنه كل هدنا هيسن سدا ولو هيسن markuu jannadii arka naciimteedii afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraarinaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaadda markaad tukanayso ee mu'adinkuu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur'aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra